Sida aynu ku aragnay qaybtii hore, Shao wuxuu si dhuumasho ah u galay jasiiraddii amiirka joogay si uu la kulmo Zhao, balse halkii qorshihiisu u hirgeli lahaa ayuu dabin ku dhacay. Amiir Jiyu ayaa Zhao badbaadiyey, taasoo sii kordhisay nacaybkii Zhao ay u qabtay Shao. Kadib waxaa dhex maray dagaal aad u xoog badan Shao iyo Amiir Jiyu. Shao wuxuu adeegsaday awoodihiisa kala duwan, xitaa wuxuu isticmaalay awoodda ukunta Dragonka, taasoo u suuragelisay inuu si siman ula dagaalamo amiirka. Markii uu baxsaday, Shao wuxuu helay dhagax ifaya oo ruuxda Dragonka ka samaysan, oo ah shay aad u qiimo badan kana kooban awood la xiriirta Dragonkii hore. Intuu isku dayay inuu ka baxo goobta uu ku dhuumanayay, wuxuu arkay waxyaabo yaab leh. Qaybtan cusub waxay ka bilaabanaysaa godka dhagaxyada Dragonka. Gudahaas godka waxaa lagu arkayaa yey duulaya oo ruuxi ah, oo weliba aad u xoog badan. Yeygan ayaa eryanayay 3 ruux oo qalfoof ah, isagoo doonaya inuu dilo. 3daas qalfoof waxay si ay naftooda u badbaadaan uga cararayeen yeyga, halka yeyguna uu u adeegsanayay awoodo gaar ah si uu u qabto una dilo. Dhacdadan oo dhan waxay indhihiisa ku arkayay Shao, isagoo daawanaya ayuu is yiri, bahalkan wuxuu eryanayaa 3dan qalfoof, laakiin maxay faa'iido ugu jirtaa inuu dilo? Bahalkii duulayay wuxuu ku sigtay inuu qabto mid ka mid ah 3da qalfoof ee immortalka ah. Markuu weerarayay, qalfoofkii wuxuu galay dhulka hoostiisa si uu isu badbaadiyo, laakiin bahalku aad buu u xoog badnaa. Hal weerar oo kaliya ayuu ku soo saaray qalfoofkii dhulka hoostiisa galay, wuxuuna ku dhuftay dhagax weyn. Qalfoofkii markuu isku dayay inuu markale baxsado, bahalkii ayaa qabtay oo isku dayay inuu dilo. Si kastaba ha ahaatee, qalfoofku wuxuu adeegsaday xeelad iyo khiyaano, isagoo markale ku dhuuntay dhulka hoostiisa, sidaasna ku badbaaday. Markaas bahalkii wuxuu jeestay 2 qalfoof ee kale si uu uga dhigo ugaarsigiisa xiga. Isla waqtigaas, mid ka mid ah qalfoofyadii ayaa arkay Shao. Wuxuu sidoo kale arkay dhagaxa ruuxda Dragonka oo Shao gacanta ku hayay. Qalfoofkii ayaa isla markiiba garwaaqsaday in Shao uu helay hanti aad u qaali ah. Shao wuxuu islahaa, qalfoofkan hadda wuxuu ku mashquulsan yahay bahalkan, sidaa darteed ima weerari karo. Laakiin qalfoofka dareenkiisa wuxuu ku xirnaa dhagaxaas ifaya. Markuu arkay bahalkii oo daba jooga saaxiibkiis, wuxuu qaaday dhagax weyn oo ku tuuray bahalkii si uu uga jeediyo dareenkiisa. Dhagaxii markuu ku dhacay bahalkii, aad buu u xanaaqay. Markan wuxuu bartilmaameed ka dhigtay qalfoofkii 3aad, laakiin qalfoofkaasi aad buu u dhagar badnaa. Halkuu meel kale u carari lahaa, wuxuu si toos ah ugu cararay dhanka Shao, isagoo rabay inuu dhibka dusha uga tuuro. Shao markii buu fahmay qorshahaas, wuuna gartay isagoo yiri, ninkan wuxuu isku dayaa inuu aniga dabinka igu rido. Bahalkii duulayayna wuxuu si xawli ah u dabagalay qalfoofkii, isagoo diyaarinaya weerar ruuxi ah oo aad u xoog badan si uu ugu dilo. Bahalkii duulayay wuxuu adeegsaday hal weerar oo kaliya, wuxuuna madax ka jaray mid ka mid ah qalfoofyadii immortaliska ahaa ama aan dhimanayn. Muuqaalkaas aad ayuu uga yaabiyey Shao. Isagoo naxsan ayuu is yiri, ma suurtagal baa in hal weerar oo kaliya lagu dilo qalfoofkan? Markii qalfoofkii la dilay, Shao ayaa noqday bartilmaameedka xiga ee bahalka. Bahalku wuxuu si tartiib ah ugu soo dhaqaaqay dhankiisa. Shao wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo in sababta bahalku u daba joogo ay tahay dhagaxa ruuxda Dragonka uu sitay, maadaama bahalku uu ahaa makhluuq jecel awoodda iyo tamarta. Bahalkii markiiba weerar ayuu ku soo qaaday, xawaaraha iyo falcelintiisu aad bay u dheeraayeen, ilaa Shao uu ku sigtay inuusan arkin goorta uu hortiisa yimid. Nasiib wanaag, Shao wuu ka leexday weerarka. Wuxuu garwaaqsaday in haddii uu doonayo inuu ka adkaado bahalkan, uu marka hore fahmo awooddiisa iyo qaabka uu u dagaalamo, laakiin waqti ku barto ma uusan haysan. Sidaas darteed, wuxuu go'aansaday inuu si toos ah u weeraro. Wuxuu adeegsaday dhagaxa ifaya ee Dragonka, isagoo ku dhuftay bahalka. Weerarku wuxuu sababay dhaawac culus. Shao xitaa wuxuu ku muday dhagaxa gudaha jirka bahalka. Taasi waxay keentay in bahalku xanuun daran dareemo, isagoo si waali ah meel walba ugu duulaya. Bahalku wuxuu isku dayay inuu iska saaro dhagaxa Dragonka, wuxuuna si xoog leh ugu dhacay dhagax weyn si uu isaga saaro dhagaxa ifaya. Laakiin Shao ma uusan doonayn inuu fursadaas isdhaafiyo. Intii bahalku hawada ku wareegayay, Shao wuxuu sii waday dabagalkiisa, isagoo raadinayay fursad uu ku soo afjaro dagaalka. Bahalkii duulayay wuxuu isku dayay inuu ka fogaado Shao, laakiin Shao isagoo xanaaqsan ayuu marar badan ku weeraray dhagaxa ruuxda Dragonka. Ugu dambeyntii, bahalku wuxuu helay fursad uu kaga baxsado weeraradii joogtada ahaa. Si kastaba ha ahaatee, Shao hore ayuu dhaawacyo badan ugu geystay. Bahalku weli aad buu u xanaaqsanaa, wuxuuna mar kale weeraro ku qaaday Shao si uu isu difaaco. Shao wuxuu adeegsaday isla dhagaxii Dragonka, maadaama uu ka buuxay awoodda Dragonka. Taas ayaa u suuragelisay inuu iska caabiyo weerarka bahalka. Labadooduba waxay galeen dagaal weyn oo xooggan.
mid walban wuxuu isku dayay inuu kan kale ka adkaado. Waxaa muuqday dagaal weyn iyo awood isriixitaan ah, laakiin Shao Kahn wuxuu dareemay in awooddiisa hadda jirta aysan ku filnayn inuu keligiis xakameeyo bahal sidan u xoog badan. Isla waqtigaas, dhagaxii ku dheganaa madaxa bahalka ayaa si lama filaan ah u ifay oo dib u soo kacay. Markuu iftiimay, dhacdo yaab leh ayaa dhacday. Qalfoofkan dhiman ee madaxa laga jaray ayaa dib u soo noolaaday. Madaxiisii iyo jirkiisana waxay bilaabeen inay mar kale isu soo laabtaan. Qalfoofku wuxuu yidhi, wiilkan bahalka ayuu mashquuliyey. Tani waa fursadda ugu fiican ee aan heli karno. Kadib madaxiisii ayuu dib ugu noqday jirkiisii, halka gacantiisii go'dayna ay si toos ah ugu duushay dhanka bahalka. Muuqaalku wuxuu ahaa mid aad u yaab badan oo cabsi leh, maadaama xubnihii kala go'ay ay si iskood ah u dhaqaaqayeen. Bahalkii oo dareenkiisu markii hore u jeeday dilka Shao Kahn, hadda wuxuu ku qasbanaaday inuu u jeesto khatartan cusub ee ka timid qalfoofyadii dib u soo noolaanayay. Bahalkii hadda wuu jahwareeray, mana awoodin inuu si buuxda diiradda u saaro dilka Shao Kahn. Taasi waxay siisay Shao Kahn fursad uu ku sii daayo awoodo badan oo u qarsoonaa. Isla waqtigaas, saddexdii qalfoof ayaa soo gaaray bahalkii, mid walba wuxuu qabtay qayb ka mid ah jirkiisa si uu u xanibo dhaqdhaqaaqiisa. Qalfoofkii saddexaadna wuxuu diyaariyey weerarkiisii ugu dambeeyey, halka Shao Kahn ka weerarayay dhinaca kale, halka labada qalfoof ee kale ay ka weerarayeen dhinacyo kale. Qalfoofka saddexaadna wuxuu si toos ah madaxa ugu dhuftay weerar aad u xoog badan. Bahalkii ma awoodin inuu iska difaaco weerarkaas culus. Ugu dambeyn, bahalkii ayaa ku dhacay dhulka weliba iyaga hortooda, wuuna dhintay. Markuu bahalku dhintay, saddexdii qalfoof si degdeg ah ay ugu ordeen meydkiisa. Waxay kala jeexeen jirkiisa, iyagoo ka soo saaray kristallo ama dhagaxyo ifaya oo ku jiray gudaha jirkiisa. Shao Kahn markuu arrintaas arkay ayuu yidhi, markaan saddexdan qalfoof ay isticmaalayeen, waxay iga faa'iidaysteen inaan bahalka mashquuliyo si ay ugu dambeyn dhagaxyada ruuxdiisa u helaan. Qalfoofyadu waxay ugu dambeyn soo saareen dhammaan dhagaxyadii bahalka ku jiray, kadibna way qaybsadeen. Dhagaxyadana ifayay waxay ahaayeen ilahooda ugu weyn ee awoodda. Markay nuugayaan oo jirkooda dhexgelinayaan, awoodooda iyo noloshooduba way sii xoogaysataa, waxayna awood u yeeshaan inay sii ugaarsadaan. Saddexdii qalfoofba waxay bilaabeen inay dhagaxyadii ku dhex milmaan jirkooda. Shao Kahn aad ayuu ula yaabay, wuxuuna is yidhi, kuwani runtii waa makhluuqyo yaab leh, ma aha oo keliya inay leeyihiin caqli, balse sidoo kale waxay leeyihiin xoog, awood ruuxi ah, iyo xirfado dagaal oo heer sare ah. Markuu awoodooda qiimeeyey, wuxuu garwaaqsaday in saddexdan qalfoof ay aad u xoog badan yihiin. Sidaas darteed, Shao Kahn wuxuu go'aansaday in waxa ugu fiican ay tahay inuusan hadda colaad la galin iyaga, balse uu marka hore fahmo waxay doonayaan iyo sida uga faa'iidaysan karo xaaladda. Shao Kahn wuxuu go'aansaday inuusan faragelin arrimaha saddexda qalfoof, sababtoo ah haddii uu dhex galo, isaga qudhiisa ayaa dhibaato weyn geli kara. Markuu bilaabay inuu ka tago goobta, mid ka mid ah qalfoofyadii ayaa arkay. Isla waqtigaas, laba kristal ama laba dhagax ayaa ka dhacay Shao Kahn. Qalfoofkii markuu arkay dhagaxyadaas, damac ayaa galay. Wuxuu bilaabay inuu si carruurnimo ah u fikiro, isagoo rumaysan in jirka Shao Kahn uu ka buuxo kristallo qaali ah. Wuxuu is yidhi, haddaan ninkan dilno, dhammaan dhagaxyada ifaya ee ku jira jirkiisa anagaa heli doonaa. Markaas ayuu fikraddiisa u sheegay hogaamiyahooda, isagoo ku booriyey inay dilaan Shao Kahn si ay u helaan dhagaxyadaas qaaliga ah. Laakiin hogaamiyihii qalfoofyada fikrad kale ayuu qabay. Wuxuu ku jawaabay, maya, ma dili doono. Sababtu waxay ahayd inuu qorshe kale maskaxda ku hayay. Hogaamiyihii wuxuu aaminsanaa in Shao Kahn uu noqon karo xulafo faa'iido leh. Wuxuu qorsheeyey inay raacaan Shao Kahn, kadibna isaga kaashadaan dilka bahalada kale ee deegaanka ku nool. Marka bahalada la dilo, waxay heli doonaan kristallo badan oo ka qiimo badan kuwa ay ka filayaan jirka Shao Kahn. Hogaamiyihii wuxuu yidhi, haddaan hadda dilno, waa doqonnimo. Waxaa ka faa'iido badan inaan dabagalno oo naga caawiyo ugaarsiga bahalada kale. Qalfoofkii damac badnaa wuxuu isku dayay inuu dood kale keeno, laakiin hogaamiyihii si adag ayuu u aamusiyey, isagoo madaxa ku dhuftay. Sidaa darteed, wuxuu ku qasbanaaday inuu amar ka qaato. Kadib saddexdii qalfoof waxay bilaabeen inay si qarsoodi ah u dabagalaan Shao Kahn. Dhanka kale, Shao Kahn isagoon ogeyn in la daba joogo, ayuu sii watay safarkiisa. Saddexda qalfoofna waxay u daba socdeen si qarsoodi ah, iyagoo ku dhuumanaya meel kasta. Waxaa markaas la sheegay in goobtan qarsoodiga ay tahay meel aad u yaab badan oo weliba u khatar badan. Shao Kahn wuxuu gaaray meel la yiraahdo keynta harada canabka. Intii saddexdii qalfoof ay si qarsoodi ah u daba socdeen, ayuu si lama filaan ah uga dhex baxay indhahooda oo waayeen. Qalfoofyadii way yaabeen, waxayna bilaabeen inay meel walba ka raadiyaan. Isla markaas, Shao Kahn ayaa si kadis ah uga soo muuqday dhexdooda, wuxuuna ku yidhi, saddexdiinuba waad idaba socoteen, ma ii sheegi kartaan waxaad iga doonaysaan? Hogaamiyihii qalfoofyada ayaa bilaabay inuu calaamado ku sharxo.
wuxuu sheegay hadaad sii gasho kayntan waxaad la kulmi doontaa bahal baalal leh oo aad u weyn oo khatar badan, anaguna kama gudbi karno halkaas, sidaas darteed waxaa ku fiican inaadan hore u sii socon. Markuu fariinta fahmay, Xiao Zhan wuxuu yidhi, markaa waxaad iga digaysaan khatar weyn oo iga horeysa. Haddii sidaas tahay, waan tixgelinayaa digniintiina. Laakiin Xiao Zhan iyo saddexda qalfoof midkoodna ma ogeyn in shimbir yar oo qarsoon ay kor ka daawanaysay wax kasta oo dhacayay. Shimbirtaas ayaa xafiday dhammaan wixii ay aragtay, kadibna waxay ku noqotay sayidkeedii si ay u gudbiso xogta. Dhanka kale, sheekadu waxay u wareegtay duurka harada canabka, halkaas oo Zhao iyo Amir Jiyu ay weli ku raad joogeen Xiao Zhan. Muddo maalin barkeed ku dhow ayay ku bixiyeen raadintiisa, balse weli wax raad ah ma aysan helin. Amir Jiyu ayaa yidhi, waxaan u malaynayaa in wiilkaasi meel aad inooga fog u sii baxsaday, laakiin isla waqtigaas amiirka wuxuu dareemay wax aan caadi ahayn, sidaa darteed wuxuu amray dhammaan ciidankiisa inay istaagaan. Sababtu waxay ahayd in hortooda ay ka muuqanaysay waxyaab leh oo soo jiitay dareenkiisa, taasoo muujinaysa in xaalad cusub oo khatar leh ay soo socoto. Waxay gaadheen meel aad u qoto dheer oo khatar badan oo loo yaqaan dhulka dhoobada. Amir Jiyu ayaa yidhi, waxaa la sheegaa in dhulkan dhoobada uu ku nool yahay bahal baalal leh oo aad u weyn una khatar badan, sidaa darteed waxaan isweydiinayaa inay habboon tahay inaan sii socono iyo in kale. Laakiin Zhao Linar ayaa ugu jawaabtay, meel kastoo ay khatartu ku badan tahay, qofka uu ku guulaysanayaa inuu ku dhunto. Waxaan hubaa in Xiao Zhan uu ku dhumanayo aaggan, sidaa darteed Amir Jiyu, fadlan iga caawi inaan helno. Marka Amir Jiyu maqlay hadalkeeda wuxuu ku yidhi, uma baahnid inaad iga codsato arrintaas, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan wax kuu qabto. Haddii shakigaagu sax yahay, dhowaan ayaan xaqiiqda ogaan doonaa. Sababtu waxay ahayd in Amir Jiyu uu lahaa shimbir sardoon ah oo u shaqaysa sidii basaas, isla markiiba shimbirtii ay dib ugu soo duushay isaga. Amir Jiyu wuxuu eegay indhaha shimbirta si uu arko wixii ay soo aragtay. Markuu sidaas sameeyey, wuxuu markiiba ogaaday meesha uu ku sugan yahay Xiao Zhan. Kadib wuxuu Zhao Linar u sheegay, haa, shakigaagii waa sax, Xiao Zhan wuxuu ku sugan yahay meesha naga horeysa. Halkaas ay qaybta 9aad ku dhammaanaysaa, iyadoo Amir Jiyu iyo Zhao Linar ay hadda ogaadeen goobta uu ku dhumanayo Xiao Zhan, isla markaana ay ku sii socdaan si ay u gaadhaan. Asxaabta sharafta badan, like inoo saara muuqaalka si aan u soo badano taxanayaashan oo kale. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waad ku mahadsan tahay daawashadaada.